sumcadeeda aad ku ciyaaraysan ardaydu soo oran mayso waa kii dhacay oo lagu soo celiyo ardayda ilaalisan ana lagu soo celiyo xoogaygan iyo ducay raac xoogay warxoogna ku shaqaysan maysidii dukaanka baadaan miyaa diiday markay ku rootay nama inaan kaas hadhi dukaanka yibiye naga badaa joog qora dukaanka anu ducadan qaatay aboon ku noqonaya ayaab waa ku ducaynaynaa ana ducay xoogaygan ducay warood naga tag ducalayn aabo aad baan kugu ducaynay sanadka dambe aaba insha Allah waa baas haye aab haye saasaynu garanayno kan ku cun ayaa isagana aan ku celino oo iska dukaanka kuma camirayo may iska soo adigu ma diiday dhagaagu ma diiday sidii hore qumanay ada quman haligu celinaa war meesha dooraysa ka bax meesha dooraysa ma meesha dooraysa waa ku duceeyaa haye war naga tagorado وما تنتين فريس صارتي والدين باينو سو غليسا سو فريس فريس ardaydiinan sida wada ogtihiin waxaynu galay imtixaan baynu ka soo baxnay waa wada ogtihiin wasaaradda waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalidu inay wax walba hagaajisay in la qaabeeyay imtixaamaadkii in la mamnuucay qishkii in la mamnuucay musuqmaasuqa imtixaanka qof waliba arday kasta inuu sidiisa u soo baxo aqoontiisa ku soo baxo waxa ogtihiin in meel walba la hagaajiyay waxa ogtihiin in ardaydu iyo aqoonta maanta la helay maadaama ay isku xirmeen oo aad loo adkeeyay wasaaradda waxbarashada iyo dadka waalidiinta ah soo ma ogidin idigu waalidiin baa timiya waa si wanaagsan waalidiin si joogsan doona waxa ogtihiin maanta inaan qof kasta oo imtixaankii galay waxa jira dad arday markay imtixaanka ku dhacaan uu moraalkoodu dhinto oo moodaya in ay noloshiiba ka dhaceen looma baahna inaad sidaa yeeshaan waayo maanta halkan waxaa fadhiya arday imtixaankii hore dhacay oo iyagu dadaalay laakiin maanta deegaanka oo dhan wanka u galay maynankii halkaas waryaa istaag kaale waryaa ninkan waa aragtaan wuxuu ka mid ahaa dadkii dhacay imtixaankii hore markii uu dadaalay ee uu baraarugay ee maskaxdiisa kaga shaqaysiiyey ee waalidkii la kulmay ee si fiican looga wada qayb qaatay macallimiintii ay isku xidhmeen waalidku maanta dowlad deegaanka wanku u galay imtixaankii oo dhan qof ka horeeya ma jiro marka waxaynu u baahannahay qofku markuu hadduu dhacaba inuu marka hore qofku dadaalo oo waxbarashadiisa la socdo oo xiisadihiisa la socdo oo maadooyinkiisa la socdo oo uu dadaala loo baahan yahay casharkiisa kun jeer ku noqdo maalintii isagoo xafidsan habeenkii seexdo subaxdiina uu la soo tooso qofku markuu sidaa yeelo wuu baasaya laakiin kuwiina sidaa yeeli waaye ee baraarugu waaye marka hore marka dambe haddaad dhacdaan bayna jigtadiina ogaataan waxaa loo baahan yahay inaad dib u baraarugtaan sida wiilkan oo kale maanta ninkani tusaale u yahay dadka oo dhan wuu mahadsan yahay iska fadhiisaade waxaanu idiin sheegaynaa adeera dhamays hawsheeda waxaan idiin sheegayaa horta maanta halkan maanta meel fiican baa maraysaan adduunyada dheef la xoojo dharaar badaa baa shaqaysa 20 intiina dhaaftay iskuulkiina idiin dhammaaday siyaasadda dhinacyadeeda dhaqaale idinkaa ku fiican idinku dhallinyaray dhulkeenna dhaqaajiya hawlihiisa dhab baan kuula hadlayaaye dhammaystirka waajibkiina waktigu dhaxal buu sidaaye ayaamuhu yay ku dhaaf tahriibta haddaad ku dhoofto haddaad iska dhibku waalidkaa mutaystay haddaad dhaqsabay lowdo haddaad iska dhababacayso dhuyaashaad iskaba dhaqaaqdo tahriibta haddaad ku dhoofto qaxoontiga haysu dhiibin dhulkaagaa laga hodmaaye idinku dhallinyaray dhulkeenna dhaqaajiya hawlihiisa istaagada maxaa tidhi istaag soo dhawow halka kaale